shirkadda SpaceX ee uu leeyahay ganacsadaha lagu magacaabo Elon Musk ayaa shaaca ka qaaday magaca qofkii ugu horeeyay ee si gaar ah isagoo rakaab ah ugu soo dul wareega dayaxa. Bilyaneer u dhashay dalka Japan ahna maalqabeen ka ganacsada naqshadaha dharka ee lagu iibiyo internetka oo lagu magacaabo Yusaku Mizawa ayaa ku dhawaaqay inuu yahay qofka bilaabaya booqashada caadiga ah ee dayaxa ku wajahan. Ninkan oo 42 sano jir ah ayaa yiri waxaan doortay inaan aado dayaxa. Waxaa la filayaa inuu raaco dayax gacmeedka lagu magacaabo Big Falcon Rocket oo farsamayntiisu ay shirkadda Musk shaacisay sanadkii 2016. safarka lagu aadayo dayaxa oo hadda qorshihiisu uu yahay sanadka 2023 2 sano kadib ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee ay bini'aadamku ku tagaan dayaxa tan iyo sanadkii 1972 xilligaas oo dayax gacmeedkii Apollo 17 ee Mareykanku uu caga dhigtay dayaxa. arrintan xiisaha leh ayaa looga dhawaaqay xarunta shirkadda SpaceX ee ku taala gobolka California ee Mareykanka. Mas'uuliyiinta shirkadda ayaa sheegay in tallaabadaas ay ka dhigan tahay muhiimad weyn oo sahlaysa in fursad la siiyo qof walba oo ku riyooda inuu hawada sare dalxiis u tago. Horay ayuu Mr. Musk barta Twitterka ugu sheegay in qofka rayidka ah ee ugu horeeya ee u socdaalaya dayaxa uu noqon doono muwaadin u dhashay dalka Japan. Maalqabeenka reer Japan ayaa soo caan baxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii isagoo New York jooga uu lacag dhan $10.5 milyan oo dollar ka bixiyay sawir gacmeed laga sameeyay fanaan Mareykan ahaa oo horay u geeriyooday kaasoo lagu magacaabi jiray Jean Michael Basquiat. ninkan ayaa isniintii sheegay in 6 ilaa 8 farshaxaniistii uu ku casuumi doono inay ku weheliyaan safarka uu ku aadayo hawada sare. markii ay dhulka ku soo laabtaan waxaa lagu codsan doonaa inay wax ka sameeyaan. farshaxaniistayaashaas waxay hami geli doonaan dhammaan dadka naga midka ah ee riyadaas oo kale leh ayuu yiri ninkan. 24 ruux oo kaliya oo dhammaantood u wada dhashay dalka Mareykanka ayaa horay u tagay dayaxa inkastoo dadkaasoo idil aysan wada caga dhigan dayaxa dushiisa. qaar ka mid ah cirbixiyeenadii la socday dayax gacmeedkii Apollo ayaa shaqadoodu ahayd inaysan soo degin oo ay dusha sare heehaabaan. xitaa ninkan reer Japan ee lagu magacaabo Mizawa qudhiisu ayaan caga dhigan doonin dayaxa.